kusoo dhawaada barnaamijka caawiya caalamka qodobada wararkeena ugu waaweynna waxa ay kala yihiin saraakiisha Mareykanka ayaa ku cadaadinaya Sacuudi Carabiya in ay muddo 30 cisho gudahooda ku joojiso weerarada hawada ah ay ku qaado dalka Yemen warbixin dheeraad ayaanu idinkaga haynaa warar kale caawana waxa kamid ah Denmarkna waxa ay sheegtay inuu fashilmay shirqool dil ah oo ay dawladda Iran maleegtay waxaana ay midowga Yurub ka dalbatay in cunqabataynta la saaro dalka Iran dhiirigelin waafi ah kamaanay helin goobaha waxbarashada iyo shaqadaba haddana Shaadiye Xasan waxa ay ku adkaysatay inay hangeeda ka gungaadho warbixin gaar ah ayaanu Hargeysa idinkaga haynaa inkastoo arrin qoys tahay haddana waxaanu idin haynaa magaalo ku taala dalka Nigeria oo carruurta dhalatahay inta badan yihiin sababta ay sida loogu macneeyay ayaanu eegi doonaa intooda badani waa mataano kala soco BBC News Somali telefishinka raadiyaha iyo online-ka iyo baraha bulshada halkani waa London barnaamijkuna waa caawiya caalamka wanaagsan daawadayaal waniga Maxamed Cabdi Xalaar oo idin la socodsiinaya barnaamijka caawa aan ku bilaabe Mareykanka ayaa ku baaqay xabad joojin dagaalka ba'an ee ka socda dalka Yemen oo ay ku jirtay in la joojiyo duqeynta cirka ee xulufada Sacuudigu hogaaminayo dagaalku waxa uu keenay dhibaatadii bini'aadanimo ee ugu weyneed caalamka laakiin hadda xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo iyo xogayaha gaashaandhigga Jim Mattis ayaa sheegay in toddobaadyo gudahood la bilaabo wada hadallo uu horkacayo qaramada midoobay Sacuudi Carabiya waxa ay fargelisay dagaalka Yemen 2015 sanad kadib markii ay jabhadda mucaaradka Xuutiyiinta ay qabsatay qaybo badan oo kamid ah dalka oo ay ku jirto caasimadda Sanaa laakiin dagaalka ayaa geystay dhimashada 56,000 oo qof labadii sano ee ugu dambeysay David Milban oo ah madaxa hay'adda IRC ka howlgasha Yemen ayaa Twitterkiisa ku qoray waa horumarkii ugu weynaa 4 sano ee dagaalku socday iyo in uu soo dhaweynayo buu yiri maadaama siyaasadda hadda socotahay ay guuldareysatay haddaba tani ma noqon kartaa bilowgii dhamaadka dagaalkii ugu dhiig badnaa caalamka Farxaan Maxamed Jimcaale ayaa ka waramaya boorsooyinkii iskuulka oo wada dhiig leh iyo baskii oo gubtay waa mar kale iyo goob dhimasho iyo burbur leh wax loogu yeeray dagaalka la hilmaamay ee Yemen dawladdeeda dhibaatada haysata ayaa ugu baaqday Sacuudiga inuu ka caawiyo waxay ugu yeereen kooxaha Xuutiyiinta ee Iran ay taageerto hadda 4 sano oo dagaal ah oo cadaadis la saarayay beesha caalamka ee hubka siisa Sacuudi Carabiya kuwa baadi goobaya xabad joojin waarta waxay isweydiinayaan waqtigan ma noqon doonaa mid ka duwan diblomaasiga Mareykanka ugu sarreeya Mike Pompeo ayaa soo saaray qoraalkan waxa uu yiri xilligan waa markii la joojin lahaa colaadda oo ay ku jiraan gantaalada laga soo ridayo dhulka ay Xuutiyiintu maamulaan sidoo kalena waa in duqeynta isbahaysiga laga joojiyo dhulka la degan yahay General Mattis xogayaha difaaca ayaa sheegaya in labada dhinac ay tahay inay ku kulmaan Sweden bisha soo socota si xal loo helo waxaan ugu yeeraynaa dhinacyada oo idil siiba Xuutiyiinta iyo isbahaysigooda Carabta inay ku kulmaan Sweden bisha November si ay xal u gaaraan maaha in laga hadlo arrimo yaryar oo ku saabsan meesha lagu kulmayo iyo miiska lagu kulmayo inta uu la eg yahay laakiin waa in laga hadlo sida loo dhimi lahaa ciidanka xuduudda jooga taasi waa arrin si toos ah loola dalinayahay ololaha duqeynta hawada ee Sacuudigu uu ku taageerayo dawladda Yemen taasoo ah mid aan kala sooc lahayn qoliyaha Koongreeska ee dhaliila iyo kuwa u ololeeya ayaa sheegaya in duqeyntu ay sababtay dhimasho aan la aqbali karin taasoo abuuraysa masiibo bini'aadanimo dilka saxafigii Sacuudiga Jamal Khashoggi ayaa sii kordhiyay in diiradda la saaro xiriirka u dhaxeeya Sacuudiga iyo Mareykanka arrintan ayaana sii kordhinaysa cadaadiska Mareykanka ee in xal nabadeed loo helo Yemen وهاجاك دنمارك ayaa codsatay midowga Yurub in cunqabatayn cusub lagu soo rogo Tehran kadib markii ay sheegeen in ay fashilmeen ama ay fashiliyeen qof la rabay in dalkooda lagu kharijiyo nin asal ahaan ka soo jeeda Iran oo haysta dhalashada Norway ayaa la xiray Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa ka waramaya
warbixintani waxa ay shaaca ka qaaday sababtii ay Denmark ku xidhay 28 bishii Sebtembar buudooyinka loogu tallaabay Sweden iyo doonyihii u gooshayay dalkaasi iyadoo boqolaal booliis iyo military isugu jira baadigoob ku jireen. Howlgalkaasi waxa ay dowladda Denmark ku sheegtay inuu ku lug lahaa isku day dil. Shalay Denmark waxa ay soo celisay danjirihii u fadhiyay Iran. waa qiimayntii ay samaysay hay-adda sirdoonka iyo ammaanka ee Denmark in waddan kale hay-addiisa sirdoonku ay qorshaysay in qof lagu kharajiyo ciidayada. aan si waadix ah idinku sheego wax la aqbali kara ma aha, waana arrin khatarteeda leh. way adag tahay in la helo hadallada ama kelmadaha saxda ah ee lagu sharaxi karo khatarta arrintani ay leedahay. bishii aynu soo dhaafnay booliiska Denmark waxa ay sheegeen baaritaan ay ku wadaan khatar dhab ah oo ku wajahan qof. shalayna madaxa sirdoonka Denmark ayaa xaqiijiyay ninka la xidhay in lala xidhiidhanayo inuu waday qorshe la rabay in lagu kharajiyo madaxa ururka xoreynta Axfaas ee laanta Denmark. Det er den sag, der på nuværende tidspunkt kiiskani waa kii 21 Oktoobar lagu xiray qof haysta dhalashada Norway asal ahaanna ka soo jeeda dalka Iran. qofkani iminka xabsiga ayuu ku jira waxaana loo haystaa inuu suurto geliyay in hay'adda sirdoonka Iran ay ka howlgasho Denmark. ilaa iminka ninkaasi waa uu beeniyay inuu kiiskaasi ku lug lahaa. Iranna waxa ay sheegtay in eedayntani qayb ka tahay nidaam lagu doonayo in lagu waxyeeleeyo xiriirka wanaagsanaanaya ee Iran iyo Yurub. Denmark waxa ay ku hawlan tahay qorshe ay kala shaqaynayso saaxiibadood cunaqabateyn cusub oo Iran la saaro. Salaasadii ayuu ra'iisul wasaaraha Denmark Oslo kula kulmay Theresa May waa ra'iisul wasaaraha Britain. bartiisa Twitterka ayuu ku qoray inuu abaal ugu hayo taageerada Theresa May ay Denmark sida dhow kala shaqaynayso iyo Britain in dalalka kale si wada jir ah ay isaga caabiyaan Iran. xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mark Pompeo ayaa ugu tahnigadeeyay Denmark inay qabteen ninka Iraaniga ah ee isku dayay dilka. iyadoo iminka Iran ay ku hawlan tahay sidii ay ula macaamili lahayd cunaqabataynta cusub ee Mareykanku saaray oo bilaabmaysa November. midowga Yurub, Shiinaha iyo Ruushku ilaa iminka way ka goonayd inay la shaqeeyaan Iran. laakiin cadaadiska Denmark iyo Mareykanka ka soo wajahaya waxay dhici kartaa inay arrintaasi wax iska bedelaan. وهاجاك بلمركان هدي أنو إجنا قضبة كلا أكجرا ورر كعاوة. دلك باكستان هوينيدي وجوه الرئيس كريستنا ولو حكومة إني بين كشكت عبادة أي محكمة السرية دلك أساسي ديسي. آسيا بي أو هوية أفر عرور له أيا توجشك حكومة تانية سنة كلا بدو كنيو طبنكي وعلى وجه هلي دم بياه إن لجو إيدي إن إيش حد جذب أو هذا الشيء دين الإسلام كان. agaasimaha xagga farsamada shirkadda Lion Air oo ahayd shirkad bixisa duulimaadyo jaban ayaa la eriyay. arrintan ayaa ka timid kadib markii mid kamid ah diyaaradaheeda ay burburtay muddo kooban markii ay ka kacday garoonka diyaaradaha Jakarta Isniintii, halkaas oo ay ku dhinteen 189 qof oo rakaab ahaa. kooxo badqoosiyaal ah ayaa sheegay inay u maleynayaan biyaha hoostooda inay ka heleen qalfoofkii diyaaradda. munaasabad nabadeed ayaa lagu qabtay caasimadda South Sudan. kumanaan qof ayaa ka soo qayb galay munaasabadda oo ka dhacday Juba, taas oo loogu dabaaldegayo heshiiskii bishii hore la saxiixay si loo dhameeyo 5 sano oo dagaal sokeeye ah. gabadhii u doonayd Jamal Khashoggi ee lagu dilay safaaradda Sacuudiga Istanbul ayaa BBC-da u sheegtay sida ay u adag tahay in ay ka samirto dilkiisii. Hatesha Jangiz waxa ay tiri in cid kasta oo ku lug lahayd dilkiisii la horkeeno cadaaladda. tan waxay ahayd dhacdo qayro caadi ah. cid walba oo ka mid ah dadka amarka bixiyay, kuwa geystay dambigan iyo cid walba oo mas'uulka ahayd dilkan waa in lala xisaabtamaa. dabcan waa inuu jiraa qof bixiyay amarka lagu dilay, balse waxaan doonaynaa in cid walba oo ku lug lahayd kan ugu sareeya ilaa iyo kan ugu hooseeya in cadaaladda la horkeeno. Sacuudigu waa uu aqbalay dilka Jamal Khashoggi. marka maxaad ka rajaynaysaa haatan Turkiga, beesha caalamka, UK, US iyo midowga Yurub? Ben bu konuda hükümetin beklenti noktasında sorduğunuz için söylüyorum. Turkiga waxa uu wadaa baaritaan qoto dheer, taasi oo aan ku qanacsannahay. siyaasiyan, garsoor ahaan iyo warbaahin ahaanba waxa ay sameeyeen wax walba oo ay awoodeen.
beesha caalamka midowda yurub britain iyo maraykanka waa inay taageeraan turkiga tani ma ahan arrin siyaasadeed tani ma ahan wax turkiga uu dusha saaranayo turkigu waa inuusan cidlo dareemin ugu dambayntii tani waa dhibaato weyn markii laga eego dhanka bani'aadanimada netice itibariyle bu aynı zamanda bir insani yönü olan çok önemli bir kriz. waxaad ahayd gabadha u doonan iyo qofkii ugu dambeeyey ee arko xilligii uu noolaa marka sideed uga soo bogsatay xaaladaasi Biz onun öldüğünü düşünmüyorduk. Yani Cemal'in öldürüldüğünü düşünmüyorduk. waxa ay ahayd naxdin aad u weyn waxaan ula jeedaa waxaan u diyaar garownay inaan si degdeg ah u aqal galno kadibna hal maalin ayaa waxani dhaceen waxa aanan la kulmay naxdintaas waxa uu galay qunsuliyadda balse kama uusan soo noqon isma aynan macsalaamayn marka uu qof dhimanayo waxaa laga arkaa calaamadaha dhimashadooda taasi halkan kama dhicin ma aynan arkin ma garanayno waxa ku dhacay qunsuliyadda sacuudiga ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday dhimashadiisii weligay kama rajo dhigin inuu nool yahay balse maalintaas aad ayaan u niyad jabay ugu yaraan waxa uu yeeshay qof uu jeclaaday gebagabadii noloshiisa waxaa laga yaabaa intaasi ay ku soo dhacday daqiiqadihii ugu dambeeyey noloshiisa taasi ayaana ku laabqabowsadaa waa qisa xanuun badan waa hagaag weli waxaa inoo soo socda oo aad qaybaha dambe ku daawan doontaan dhiirigelin waafi ah kamaanay helin goobaha waxbarashada iyo shaqadaba haddana shaadiye xasan waxay ku adkaysanaysaa in hankeeda ay ka gungaadho warbixin gaar ah ayaanu idinkaga haynaa shaadiye xasan iyo magaalada hargeysa qadar yar oo nasasho ah dabadeed habeen wanaagsan mar labaad daawadayaal weli waxaad daawanaysaan caawiya caalamka waaniga waa maxamed cabdi xaraare bal idin xasuusiyo qodobada caawa wararkeena ugu waaweyn saraakiisha maraykanka ayaa ku cadaadinaya sacuudi carabiya inay muddo 30 cisho gudahooda ku joojiyaan weerarada hawada ah ay ku qaadayaan dalka yemen denmarkna waxa ay sheegtay inuu fashilmay shirqool dil ah oo dowladda iiraan maleegtay waxaana ay midowda yurub ka dalbatay in cunaqabatayn la saaro iiraan shaqada korontada waa mid ka mid ah shaqooyinka ugu adag uguna halista badan waa shaqo ragga lagu yaqaano muddo dheer ama lagu yaqiinay laakiin shaadiye xasan oo markii ay wax baranaysay iyo markii ay shaqadoonka ahaydba loo sheegi jiray inaysan shaqadan teeda ahayn ayaa noqotay gabadhii ugu horeysay ee jaamacadaha dalka uga soo baxday cilmigan waxay hadda xirfadeedan kaga shaqaysataa magaalada hargeysa magacaygu waa shaadiye xasan waxaan bartay cilmiga korontada ama electrical engineering loo yaqaano waxaan ka bartay jaamacadda hargeysa waxaan dhiganay muddo 5 sano ah hadeerna alxamdulillah aan ku shaqeeyaa cilmiga korontadu ma aha cilmi badanka hablaha Soomaalidu ay ku badan yihiin aan xasuusta kalaaskii kale inaan hayn inta kaliya dhigata kalaaskaas dadana aan noqday kaliya inaan 44 ku noqdo kalaas 3 wiil fadhiyaan وكير ولا عينتي هردن ويقول رابكي لكن وحول با همي يهيك سجال هذا النشا يا مركز وضعية برشة علمي يعني رنتي waxaan xiisin jiray ilaa yaraantaydiiba iyadoo sababu haayeen labada maadada fiisikiska iyo maadista oo xoog u jeclaa waxyaaba markan weynaaday wixii motivate garin jiray waxa markaan ka gabadh yani injineerado kale oo wadan kale ah joogta oo yani wadankeeda wax qabanaysa ana waxay geli jirtay diila ah tolo ana goormaad baran doontaa dhamayn doontaa wadankaaga anfici doontaa intaan cilmigan baranayay waxyaabihii natiijin gaaray waxa kamid ah runtii fikirka dadka ay markasta kula wadaagayaan oo kale ku gooranayaan cilmiga maxaad ku falaysaa oo kale shaqada hadhow kuma heli sidoo kale yani waxaad baranaysaa waa shaqadii ragga kaba sii daranay markaad sanadada ugu dambeysay jaamacadda soo gaadhay doonayay inaan arko wixii buugaan kasoo dhiganayay siduu u shaqeeyo siduu wadanka ka yahay in laygu yidhaahdo in kambaniyada qaar ay kugu dhahdaanba oo gabdho baa tahay iyagoona eegin heerkaaga aqoonta maxaad baratay qiimeyn beegan kula gaarin lagu yidhaahdo يعني قبل باتهم
ma ku caawin karno badanka bulshada waxay isku dhex khaladaa qofka technicianka ah iyo qofka engineerka injineerku badanka waa maskaxda ka dambaysa mashruuca laakiin technicianku waa qofkii gacanta ka fulinayay marka badanka haweenka waxa laga cabsiyaa shaqadan gacanta laga qabtaa laakiin maanta waxaan idin sheegayaa shaqadan inay tahay shaqo gacmeed shaqadan ay tahay qofkii garaadkiisii iyo waxaan dhahay saa adiga kolbada aqoontaadu intay gaarsiisan tahay runtii aniga hamigayga waxa weeye markasta qoys kasta oo Soomaaliya ama reer Somaliland ahayba sidoo helo koronto jaban uguna isticmaali lahaa warwar la'aan isagoo ka baqanahay inay ka go'do taasoo aan ku xoojinayo inay isticmaalaan tamarta dabiiciga ah waa hagaag mataanaha ku dhasha galbeedka Afrika aad ayay u badan yihiin waana ka badan yihiin meelo badan oo caalamka kamid ah gobolka Ayo ee koonfurka galbeed ee Nigeria waxa ku dhasha mataano xad dhaaf ah waxaana looga yaqaanaa gobolkaasi raxmad qaar kamid ah mataanayaashaas ayaa munaasabad dabaaldeg ah sameystay BBC-da ayaa warbixintan ka diyaarisay Fatxi Cilmi ayaana soo jeedinaysa laba mataano ayay u wada ciyaarayaan waxay dhaheen waa dibadbaxa ugu weyn oo lagu qabto Afrika bandhiga mataanaha ayaa mar dhow lagu qabtay magaalada Igabowa oo kamid ah gobolka Oya ee koonfur galbeed Nigeria waxaana ka soo qayb galay in ka badan 2,000 oo mataano ah 3 mataano 4 mataano iyo ka badan qaarkood waxay aaminsan yihiin in Oya ay tahay caasimadda mataanaha ee adduunka tira sax ah lama hayo mana jiraan hadda laakiin daraasad la sameeyay 1970 ilaa 80 koonfur galbeed ee Nigeria waxa la diiwaan galshay celcelis ahaan 45 ilaa 50 dhig oo mataana ah kunkii qofood ee dhashaba dadka ayaan wax badan la ciyaarnaa waan wareerinaa isku waxayaan sameynaa waan isla ciyaarnaa qoyskaygu waa wada mataano hooyaday aabbahay iyo aniguba mataan ayaan ahay bulshadan waxay aaminsan yihiin in cuntada ay cunaan qaarkeed ku caawiso in ay dhalaan mataano qaasatan Alisa waa maraq laga sameeyay caleenta baamiyaha iyo maxog waxaan u malaynaynaa inay la xidhiidho waxa ay cuneen sidaas ayay yidhaahdeen waxay kor u qaadaa uur qaadkooda waa cuntada ay caadiyan cunaan qayb ka mid ah cuntada joogtada ay u cunaan weeye maxay qaban karaan miyay joojiyaan cuntadaas marka waa inaannu beernaa haddii aad adigu u baahan tahay inaad mataana dhasho kaalay halkan oo cun Ilasa ma jiraan wax cadaymo ah oo loo haysto daraasadan laakiin dadka degan gobolka Oya waxay aaminsan yihiin in nasiibkooda laba jibaarmay وأكيد ميرا عجيبة عدي دوني سنة متانا دشو بل waxay aadi doontaa dalkaasi Nigeria bal imankan hadii aanu eegno wararka ciyaaraha ee caawa golayaha kooxda Arsenal Peter Cech ayaa garoomada dib ugu soo noqonaya kulanka wareega afraad ee ay kooxdiisu gol dhow la qaadan doonto kooxda Blackpool kooxda uma safan tan iyo intii uu faylka ka dhaawacmay Septembertii tagtay ee sanadkan dhanka kale Eden Hazard ayaa la filayaa in aanu ciyaarin kulanka kooxdiisa Chelsea ay la yeelan doonto kooxda Derby sabab la xiriira baa la yiri dhabar xanuun soo gaaray tababaraha kooxda Chelsea Marco Ayani ayaa xiriirka kubadda cagta ee dalkan Ingiriisku ku ganaaxeen lacag gaaraysa $7,500 kadib markii baa la yiri ay isku dhaceen isaga iyo tababaraha Manchester United Jose Mourinho 20kii bishan October Ayani ayaa dhanka United ku dabaaldegay kadib markii ay kooxdiisa daqiiqadii 96aad ay bareejo 2-2 ah keentay arintaas oo dhalisay falcelinta Mourinho madaxweynaha FIFA Gianni Infantino ayaa sheegay in ballaarinta kooxaha ka qayb galaya koobka adduunka ee laga dhigayo 48 koox halkii ay horey uga ahayd 32 ayaa la sheegaya in la soo horumarin doono sanadka 2022 isbeddelkan ayaa ka dhiganaan doona in dawladda Qatar ay qabashada koobka adduunka ee 2022 la wadaagi doonto dalalka kale ee gobolka
dagaalka suuriya ka socda waxa ay jiil dan ku waayeen fursad ay riyadooda ku gaaraan inkastoo ay jireen caqabado ba'an haddana cabdulaahi kitane oo 19 jir ah damaciisa kama uusan harin iyadoo dagaal jiro ayuu wiilkan yar isbaray cilmiga chemistryga isagoo adeegsanaya toosh iyo mobile waxa uu ku guuleystay inuu helo jaamacadda Cambridge si qarashka waxbarashada uu helo wuxuu sameeyay bog uu qaaraan ku dalbanayo ka hor inta aanu Corpus Christi College siin deeqda waxbarasho Cusmaan Cabdi Xasan ayaa ka waramaya cabdulaahi waa 19 jir waxaana ka mid yahay dhalinyarada boqolaalka kun ee qaxootiga Suuriya kuwaasi oo doonaya inay si caadi ah u noolaadaan iyagoo ku jira xaalad aan caadi ahayn waa arday muuqdo dadaal badan guushiisa tartanka waxbarasho sare waxa ay timid xilli ay jiraan dagaal cunno yari iyo ciriiri dhaqaale ma awoodin buugta iskuulka cabdulaahi waxa uu qoraalada waxbarashada uu doonaya ka heli jiray internetka telefoonkiisa waxaan wax ku baran jiray telefoonkayga korontada waxay go'i jirtay ku dhowaad 4 saacadood kadibna 2 saac ayaan heli jiray adkaysigiisa waxa uu ku gaaray guul taasi oo u horseeday fursad noloshiisa wax ka bedelaysa oo ah inuu helo jaamacadda Cambridge anigoo ku jira laabtoobkayga oo sugaya inaan akhriyo ereyada sida nasiib darro ama wax kale ayaan arkay erayadan waan farxay kadib emailka ayaan wada akhriyay waan boodbooday sida qof waalan ayaan u cararay caqabadda ugu dambaysa waa dhaqaale balse kollejka Corpus iyo urur gargaar ayaa qarashkiisa daboolay ma iloobin sababta shakhsiyan uu doonayo inuu halkan u joogo ayeeday cudurka ilowshaha ayay qabtaa waxay ahayd qof lagu daydo waxay ka mid ahayd haweenkii ugu horeeyay Suuriya ee sii wata PhD balse jirrada ayay wax walba ku weyday cabdulaahi waxa uu doonayaa inuu dhammeeyo cudurka ilowshaha Tony Kasiridi madaxa macadka Milner ee jaamacadda ayaa la taliya u ah waa wiil ka mid ah dhalinyarada Suuriya oo dagaalka si ka duwan kuwa kale u saameeyay aad ayaan ugu farxi lahaa haddii aan heli lahaa fursad aan wax kugu biiriyo horumarka sannadaha soo socda dareen weyn ayaan leeyahay inaan mustaqbalka sidaa sameeyo طبعا dadaala uu gaaraaye ugu dambeyntiina taaladii ugu weynayd caalamka ayaa lagu soo bandhigay gobolka Gujarat ee Hindiya munaasabad ballaaran uu hogaaminayay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Narendra Modi waxaa loogu magac daray taalada midnimada waxaana lagu xusayaa geesi ka mid ahaa xornimadoonkii Sardar Patel dhererka taaladu waa 182 mitir waxaa lagu dahaaray qalin waxaana ayna ku laba jabaarantaa taalada New York ee Liberty lagu magacaabo waxay qaadatay ilaa 4 sano in la dhiso waxaana ku kacay adduun gaaraya ilaa 400 milyan oo dollar dadka deegaanka ayaa ku tilmaamay in lacag lagu tagrifalay oona la khasaariyay وهاجاك مرة بواحد نقلا سعون كرتان BBC Somali Facebook فضلا رادي BBC News Somali هالكاسي واد كهلي دونتو مقالو فلنقين ديرادا هي وراركي أقوى وين سيادو هشو وراركي قدام بيه Somali عالم كان نقلا سعو BBC Somali تويتر إيه إنستغرام وهاجاك انتا أيان كسو قبقبينيا برنامج كعاوة إيه عالمك waad ku maasantihiin daawashadiina inta aanu mar kale dib u kulmi doono aniga iyo kooxdaba waxaan idinkaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo